wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa dhawaan damaanad qaaday nolosha qoys danyar ah oo ay ka xanuunsanayaan 3 caruur ah waxaana qoyskani imika ay ku sugan yihiin caasimadda Soomaaliland Hargeysa kuwaas oo hore uga yimi magaalada Buuhoodle kuwaas oo xaalad caafimaad ay la soo diristay 3 caruur ah oo kamid ah qoyskaasi wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo hore ugu geysay qoyskaasi raashin iyo ayaa maantana gaarsiisay raashin lacag iyo baaskiilada loogu talagalay caruurtaasi xanuunsanaysa ee naafada ah waxaana halkaasi goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyo agaasimo waaxeedyada waaxda arrimaha bulshada iyo naafada waxaana halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda naafada ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Siciid Mawlid iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Cawaale Maxamed Muuse oo sharaxay deeqdan kala duwan iyo sida wasaaraddu ay uga warhayso qoyskan danyarta ah isla markaas ay ka xanuunsanayaan caruurta yaryar ee ka yimi magaalada Buuhoodle family-gana kulleeyto family 3 caruur oo naafa haysta hawshiisu ma yara waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir Hinda Jaamac Xirsi Gaani iyo agaasimayaasha ay khusayso oo Cawaale iyo Xamdi ay kamid yihiin sida fiican ee ay reerkan ula shaqeeyaan yaani waajibka qaranka uga saaran wax weeyaan la shukra cala alwaajib waa waajib ka saaran qaranka sidoo kale waxaan aad u mahadnaqayaa ururka la yiraahdo dan qayb muhiim ah ka qaatay oo maanta 3 baaskiiladood iyaguna aan u keenay dabcan waxaanu daba soconaa go'aankii hore ee wasaaraddan gaarnay in qoyskan muddada dhowr kablood ay Hargeysa ku sugan yihiin xaaladda caafimaad joogan inaanu wasaaraddan aan isku dayno inaanu kafaalo qaadno noloshooda inta ay ku nool yihiin xusuus mudan caruurta 3 laba caruur kamida subax walba waa physiotherapy loo sameeyaa oo waxa la geeyaa bisha cas dabcan ina kan ugu roonanba weyn isaga xaaladiisa waxay noqotay xaalad dalka aan gudihiisa imika xal ku noqonay iyo waxaan filayaa iyo wadamada jaarkaaba laakiin waxaan codsanaynaa ka wasaaradahan in dadka muxsiniinta ilaahay dartii aakhiradooda wax u dhiganaya meel aynu wax ku bixino ama aynu wax dhigan karno waa meelaha ugu khayrka badan weeye waa bishii labaad dabcan raashinka iyo lacagtaas iyo baaskiladaha iyo agabkaasna soo gaarsiinay dabcan anagana ilaahay aan noo fududeeyo wixii aan isleeynaad la qabataan oo dhan Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa.